wax mu'amara la yiraahdo oo aniga aan sameeynayn wallahi billahi talaan sijir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handal garayaan aaminsana wayahay dhanka kale waxaa jira kulan Cabdi Xaashi iyo xubno kale aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arrintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas oo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo Cabdi Xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa ay sheegaysaa Cabdi Xaashi oo sheeg kulankaasi maxaad uga hadasheen arrinkaas waxbana ku darimaha waxbana ka dhimaha sida Cabdi Xaashi uu sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyay waxa aan sheegnay waa run been ma ka shalaynaysaa xariga xubnaha madaxweynaha iyo hadda anigu ma ku jirin waa la qasbay waa la yeelay aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in laga afiyaan rabaan ku yiri laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax ku dhiisan oo fiisaha in laga caawiyo dawladda Itoobiya loo dhiibo oo raali ka yahay si Itoobiya uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geysnimo in la qaataan maqaldam waa ilaahay oo laf inay golaha wasiirada fadhiisiyaan kasa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن الله وديال waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno ambassador Abdullahi Maxamed Ali Sanbalolshe taliye hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya sidoo kale soo noqday ambassadorkii dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka UK waraysigani haddii ay yiraahdo waxaan diiradda ku saari doonaa hadal hayn dib u soo uga timid kiiskii qalbi dhagax oo mar dawladda dhexe Soomaaliya ay ka soo xirtay gaalkacyo sidaasina loogu wareejiyay dawladda Itoobiya waraysi ay bixiyeen qaar kamid ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa hadal hayn fara badan ay ka dhalatay inagoo eegayna xogta looga baahan yahay in laga helo arrintan ayaynu waxaan xafiiskiisa ku booqanay ambassador Sanbalolshe oo aan arrimahaasi wax ka weydiinayno ambassador waxay noo tahay fursad mar kale inaan xafiiskaaga joogno intaasi kadib 72 saacadood ee la soo dhaafay baraha bulshada iyo warbaahinta waxay aad u hadalhayeen kiiska qalbi dhagax oo mar kale soo ifbaxay waxaana ka hadlay afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in kiiskaasi iyo habkii loola tacaamulay xog far badan aad adigu ka bixinaysay kulug lahayd kulamo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi iyo xubno kale oo sanatarada ah goobjoog aad ka ahayd maxaad inagala wadaagi kartaa arrimahaasi بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنتين تيمك دلسن runtiina موضوعان waa موضوع timely ah ama waqtigii ku haboona in laga hadlo ay joogto anigu horta muddo arrinkan waa arrin xasaasi ah waana ka leexleexanaay si toos ah uga hadlo anigoo ilaashanaya my professional credibility because taliyihii sirdoonkan ahay mas'uuliyadda koobaad waxay tahay sirta qaranka xafiiskaas intaan joogo inaan ilaaliyo sirtaasna waxaa ka mid ah go'aamo waaweyn oo saameyn ummadda Soomaaliyeed ku leh ama ha qaldanaadaano ama ha saxsanaadaano muddadii 3 sano la soo dhaafay waa maalin kasta waa farta afka la gelinayay si aan arrinkan uga hadlo hadda bacdama uu u muuqdo mashruucan ama hadalkan musalsal ma dhamaata ah anigoo tixraacaya hadalkii maaldood adeer Cabdi Xaashi uu sheegay horta anigiisa u fahmay sida Cabdi Xaashi hadalka uu dhigay dadka u fasiranaya anigu uma fahmin inuu mas'uuliyadda bilaaw iyo dhamaad Sanbalolshe uu saaray sida Cabdi Xaashi uu sheegay anigoona hadda mana ku beeninayo sida loo fasirtay ma si inta uu sheegay ma beeninayo waa runtii sorto aniga iyo asaga iyo madaxweynaha wada hadalkaas inuu dhaxmaray waa run laakiin su'aashu waxay tahay horta meesha Cabdi Xaashi ugu la kulmay waxa geeyahay yaasi joogay markuu la kulmay qalbi dhagax markaas ka hormaal dhiibay mise kadib ayaa la dhiibay asagoo oday Soomaaliyeed oo arrinka laga tala galiyay oo ii sheegeen maxaan ku dhaha ku soo baxay uu ahaay muxuu ka qabtay haddii uu nin wadaniya ama xaldoon yahay markaas muxuu intervention u sameeyay waay sida asagaba ay uga hoos bixi karto taladu ay horta qof kasta mas'uuliyadda oo Soomaaliyeed talada uga hoos bixi karta horta maqaldam waa ilaahay waxaan rabaa marka rekoorka arrinkan inaan sadgareeyo oo aan ifiyo shaqada nabad sugidda horta waxay tahay iyo doorka ninka madaxda ka ah marka ay timaado qadiyadahan oo kale muxuu yahay horta sida malaa'ikta ilaahay qaarna ay furaha jannada u hayso
qaarna ay furaha cadaabta u hayso ama ay maamusho cadaabta ama ay jannada maamusho labadooduba shaqo kala fiican ahayaan laakiin dabcan shaqadii loo idmaday oo ilaahay u dirsaday haayaan shaqada nabad sugiddu horta shaqo dadka loo burcad loogu mariyo maaha maali ilaahay keeno daday soo qabataa ama wax cad ha ku hayso ama tuun ha ku haysee shaqadeeda horta dad soo qabasho waa hadda ka hor nabad sugidda aan joogay hadda ka hor qalbi dhagaxna magaaladu joogay sooma qaban wax kastana waqti iyo qadar allaa jirta anigu marka sideedaba soo qabashaan leehay haysmana waa leehay markay timaado foreign policyga dowlad kaleeto iyo dowladda Soomaaliya wax dhex maraya horta aniga mas'uuliyaddaas ma leeyahay xukuumadan u dhisan madaxweyne leedahay ilaa ma kala dowladooda fara badan oo la dhaqma aniga shakhsiyan mas'uuliyadda iskama filqaayo oo waxaan rabaa inaan qirto qaybtii aan ku lahay doorkaas dabcan shaqada iyo xafiiska mas'uuliyaddaas ay keenaysay haddaba qof intaan qabto mana xiraay ii sheegeen mana dhiibay waxaan rabaa marka inaan fahmo horta dadka Soomaaliyeed haddii uusan is-indhatirayn wuu fahmi karaa wuuna miisaami karaa sidii wax u dhaceen waxaan rabaa marka aniga shakhsiyan nin oo mas'uuliyaddiisa ka gilgilanaya maaha marka howlahan oo kale xasaasiga iyo xafiis xasaasiga aad ku dhex jirto go'aamo badan oo critical oo natiijadoodu qaldamaan iyo kuwa saxmaanba waad samaynaysaa anigu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagax iyo qoyskiisii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ONLF aan ugu cudur daarto oo raali gelin buuxda oo public aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaan rabaa Soomaaliya u sheego arrinkaas anigana igama bilaaban igumana dhamaan inuusan iga bilaabanin iguna dhamaanin waxa cadeyno ah qalbi dhagax waxa laga qabtay gaalkacyo si kastaba lagu sida loo qabtay iyo cid ka dambeysay annada waxa waaye ama waqti kale aan ka hadli doona faahfaahinteeda haddana ma rabna inaan ii sheegeen waaba arrimo sira maba fiicnaba laakiin maalin oo la kala classification lagu sameey karo ayaa jirto laga hadli karo haddii aniga marka aan qalbi dhagax mashruuciisa uu kooban yahay qalbi dhagax gaalkacyo ayaa Cabdi Ilay iyo Ethiopian iyo ciidan Puntland iyo maamulka Galmudug ay kulligood ku baratamayeen inuu gacanta u galo Ethiopian lagu wareejiyo markaas horta gaalkacyo la joogo sanbaloosha waxaan ku takrifalay waa la dhihi karay ayada nafteedana hadda ay tahay yani doorkan ku lahay iyo taas nafteeduna calaamad su'aal ay ka taagantahay qalbi dhagax ani waxaan aaminsanahay waa soo badbaadiyay bad iyo alool libari ku jira waa ka soo baxshay xamaran keenay xamar markii aan keenay horta kadib la diray gaalkacyo lagama dirin haddii gaalkacyo laga diri lahay Cabdi Ilay inuu dilo si raqiis in loo gato qadiyad wax oo hadda oo ka faa'iido lahay gaalkacyo in laga dhiibo ninka la yiraahdo ii sheeg maxaan ku dhahaa qalbi dhagaxna oo wax oo ka faa'iido lahayn anigu hadda ma og waxa ku soo haray dadaa leh waa mu'aamaraad oo waxaas frame gareynaya wax mu'aamaraad la yiraahdo oo aniga aan sameeynayn wallahi billahi talaan si jir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handal gareeyaan aaminsana oo ay tahay horta koow ninkii habal la qabtay laakiin si raqiis inuu ku bixin xamara la keenay kadib xamara uu ka tagay anigu hadda aan lahayn hebel ka dambeeyay hebel ka dambeeyay waxaan rabaa marka inaan Soomaalina mid iraado qalbi dhagaxna iyo ONLFna mid dhaho madaxweynaha iyo xukuumadana mid aan dhaho waxaan rabaa horta koow madaxweynaha iyo xukuumadda keyskan sida aan u handal gareynay overall mas'uuliyadiisa ka macaran kana waa mis handal gareynay si fiican waxaan oo daraamaa iyo buuq ah oo marin habaabisay ma mis handal macnaha mar habaabin maahan yani sida oo loo xakameeyay si xigmaysan ma ahayn anisa aamisana waxaasuna ama duruufaha iyo waxa saakeenay gadaalana ka faahfaahin doona waxaan jeclahay marka bacdama xukuumadda Soomaaliya ONLF iyo qalbi dhagax
iyo waxoo dhanba ay yiraahdeen waa argagixiso horta waxaan rabaa xukuumaddii dib in loo fadhiisiyo talada aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aan siinayo waay oo ay Ethiopia oo shalayba ay terrorist lafna ugu qorray qalbi dhagax noqdo waa ka tiraan waa xisbi iyo dhaqdhaqaaq la aqoonsiyahay oo xalaal oo aan argagixis Ethiopia ka ahayn hadii Ethiopia shalay ay la dagaalamaysa ay maanta argagixis ka ahayn annaga buukiskeena argagixis oo aan laf kuma qornaan karto si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo in ay qaataan maqaldam waa ilaahay oo aan laf in golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaran liiska argagixisada oo aan laf xamar ay ku martiqaadaan qalbi dhagax xamar ay ku martiqaadaan si guud Soomaaliya ay ugu samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso oo aan lafna ay fursad ay u hesho in caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garayntii iyo argagixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan taas horta madaxweynaha waxaan kula talinaa ay sheegeen waxaan kula talinaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guud ahaan mashruucan inay iska soo xiraan raali ahawna waa wax la fahmi karo nin weyn qaladkiisa qartana dadku waa ka garaabi karaa waxaan rabaa qalbi dhagax iyo la filmidaan dhaho qalbi dhagax hadda kor xabsigan ugu tagay waxaan u sheegay dawladdii Soomaaliyeed tacbaanka ahayd dartiis inuu dumar rabto waxaan ka codsaday asaga uu badbaadi doonaa inuu ka faa'iidana dhici karta waxa uu hadda sharta loo maleynaayo horta inuu dartiis dawladda Soomaaliyeed aysan u dumin oo farmaajo Soomaali haddii si kale u ridayso ama ay talaab uga qaadayso kuushiya lagu qabsan karaa jireen because of qalbi dhagax inaan horta maalin ilaahay keeno aanan cusbada nabarka farmaajo lagu xuquuqin Soomaalida haddii lagu soo jeediyo apology iyo raali gelinta aniga shakhsi aan ku soo jeedin nin hadda waxna deystan waxna disho waa tahay waa garaawis karta inuu uga garaabo guud ahaan oo aan laf iyo asagana waa rabaa haddii Soomaalida iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu kalsoonidaas intii go'aankaas qaataan raali gelin ka qaataan inuu qaato waa rabaa waxaan rabaa marka mashruucan marka Soomaalida midaan leeyahay marka midaan leeyahay Soomaalida waxay tahay waxaanu drama iyo waxaanu negativity iyo waxaanu weerar waxa lagu toojar gareynaa madaxweynaha lagu toojar gareynaa ee wax ma aaminsanay Soomaalidan qaylinayso crocodile tears waayo oo hintooda waa been مواد ودانينما إني كتاي مقبو Soomaali jecel inay ka tahay ma qabo qalbi dhagax difaac inay ka tahay ma qabo qadiyad oo aan la fi u taagin inay ka tahay ma qabo madaxweynihii bacda ma wixii la kala cadeey waayo ninkaana lagu dhiba oo lagu tuhunsayaa wadananimo iyo malaha hadda ka hor game uu soo dheelaa lagu xumeeyna ma ogiye ma u maleynay Soomaalidu in ay waxaanu dhab ka tahay war Soomaaliya sideedaba ishaan waxa u yeelo waa Soomaali ee farmaajo uma yeelin farmaajina dawlad Soomaaliyeed ma difaaci karo qof Soomaaliyeed ma difaaci karo inta duruufteenu sidan ka tahay dabiiciyan dawladaha fashilmay oo wiiga ah oo anagoo kale taa qadiyadahooda iyo go'aamadooda masiiriga siyaasadeed uma madax banaana tusaale waxa ka soo ah adduunka dagaal ka soo dhacay Germany oo kale hadda economic power ka Europe ah dagaalkii labaad adduunka 45 inta la qabsaday ayaa quwadaha Ruushka iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanku qaybsadeen ciidan ma sameeyay kartiin madaxdoodii maxkamadda la saaray dagaalkii magdhawa lagu xukumay waa la gumeystay Ruush iyo ninba meel uu ka degay taaka loo qaybsaday humiliation waa la qaataa ويعني waxa la qaataa ihaano waa la qaataa daruufahan oo kale dawladuhu markay marayaan marka madaxweyne Soomaaliyeed oo heybad ilaalin kara annaga duruuftan ku jirna ma jiro ninka odaga wuxuu san karin horta in lagu dhibin taas waxaan rabaa Soomaalida inaan ka codsano historyga kale aan rabaa inaan sheego waxay tahay Jarmal waa ka soo dabaalatay maxay ugu soo dabaalatay dulqaad ay ugu soo dabaalatay in ayaduna si tartiiba ay dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo madaxbannaanida u soo ceshato midnimadeedana ay soo ceshato maantana awood noqoto adduunka Yurub ka jirtana ay noqoto Japan nuclear lagu garaacay waa la qabsaday dalkeeda ciidana ma sameeyay kartiin xamaasha bisaa la yiri adduunka economic powers ku jirta dulqaad ay soo yeelatay Finland waxa jirta dagaalkii labaad ee adduunka waxay la dagaalaysay Ruushka dirit la dabcan waan la isku garan karaa Finland oo 6 milyan 7 milyan ah iyo Ruushka 100 milyan ama Soviet markaas almost 300-400 million people ahay
waa wajahday waa qaldantay last minute haddii ka weysay reer galbeedkii gacan ayadoon jeclayna allah waxay la noqotay Hitler iyo naaziyiintii wax yar kadibna Hitleraa jawaba ayadii marka waxay noqotay they have to pay the price madaxweynihii dagaalka hogaaminaya wasiirkii gaashaandhigga wasiirkii arrimaha dibadda italiyii ciidanka waxa lagu qasbay oo geesiyaal qaran ahay waxa lagu qasbay in la maxkamadeeyo oo dagaalkii ay ku difaacayeen Finland lagu dambeeyay war ahaanada Soomaaliya qof haybadeeda ilaali karta ma jirto dawladda haday jabtee madaxweynaha ayaan lagu dhibin mashruucan oo indhaha faraha ayaan loo gelin waxaan jeclahay kiiskan inuu soo xirmo shakhsiyan aniga waxaan wax aniga iga bilowda iguna dhamaada ma ahan waa wax dawladda Soomaaliyeed gib ahaanteed u yaal horta waxaan rabaa inaan arrinka aan saas u cadeeyo waxaan kaloo rabaa madaxweynaha midaan xasuusiyo aniga hadda koortilahan wasuugida waa aniga ahaa waa timar laga qaaday maxaa laga qaaday waxa laga qaaday xildhibaan xirti horta aniga xildhibaankaas ma xirin kiiska u muuqanaysa taas ma muuqanaysa meeshaan ku jirtaa meeshaan rabaa inaan cadeeyo meeshaan rabaa xildhibaana xirtaa aniga looga eedeeyay xildhibaankaas anigu ma xirin nin sarkaala oo meesha nabad sugidda haysta godka xiray laakiin aniga eedda qaato waxa yidhi anaa xiray waxaan diidayay qof shaqaalahayga ah oo aniga madaxooda ahay in gacanta inta lay diibto ii sheegeen maxaan ku dhahaa anigu ma xirin asagaa xiray si aan jagadeeda u badbaadsado madaxweynaha sideedaba ceebay ku tahay waxaan aniga mas-uul kama ahayn hebeloo ii shaqaynaya mas-uulka inuu naga naf jeclaysto iyo dadkiis uu ka naf jeclaysto dadka raba oo taageerada beentaana ay saas ay u sawiraan horta waa laga fiican yahay everything oo under his leadership ku dhaca sax qaladba mas-uuliyadiisa ma laga gaban karo sida anigaba taas aan u gaban oo aan shaqadeeda ku waayay waya qofkan shaqaalaha ah ee liisa ka shaqaynayay ee xildhibaanka xiray ma la wadaagi kartaa kuma ayuu ahaa ma hebel ma dhihi kara hadda waliba ninkaas anigana waa shaqada waa laga qaaday asagana janana laga dhigay bil kadib ebidkeyna ma dhihin waana la ogyahay ebidkeyna ma dhihin hebel xiray ninka la xirana waa ogyahay aniga inaan xirin kuwa wasiirada shaqada ay qaadeen waa ogaa inaan xirin ee curricular tiers ayuu ii sheegeen ayaa waxaan oo dhan laga ahaa waxaa la rabaa marka sideeda generaalku ahaa ma noo sheegi kartaa magaciisa mar kale aan ka hadla mar inaan disclose gareey ma rabo laakiin janano ku qaatay waa la ogyahay waa la baari karaa dadku waa la fahmi karaa janano ku qaatay anaan isku dhigay kiiskaas anoo dhihi kara hal xiro waa tuug ma yeelin faysifin anoo samaysan karo jagadeeda protect gare kara waxa yiri ninka shaqadaas ana amray ana yiri of course maybe I mishandled laakiin waxaan diidayay in lay gacan dhaafo shaqaalahayga horta madaxweynaha dadkiisa in loo gacan dhaafo oo la yiraahdo adiga ku jirtide hebel ii sheegeen maxaan ku dhahay asaga leex sax ma sida wareysigana ku jirtay oo bixiyo gudoomiyaha waxa kamid ahayd in maalintii ugu dambeysay maalintii ku horeysay ee qalbi dhaga xabsiga laga soo saaray in gaariga lagu soo qaaday adiga aad ku jirtay arrimahaasi sidaas ma u jiraan horta sideedaba aniga taliyaan ahaa minimum 3-4 kun qof aan ii shaqeynaysa sabab aniga aan maxbuus qof xabsi ku jira aan toos ula macaamil horta ma jirto xaasha Allah Cabdiqaadir waxa maqla asagoo dhahaya baabuurka ninka saarnaysan baloosh inaa u mareynaa ma aha mana u tagin mana arkin aniga qalbi dhagax mana la sheekaysan baabuurna lama raacin wayahay dhanka kale waxaa jira kulan Abdi Xaashi iyo xubno kale aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas oo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo Abdi Xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa aad ii sheegaysaa Abdi Xaashi oo sheeg kulankaasi maxaad uga hadasheen ruwan marka hore ama sheegaba fiiri run waay horta waxaan ka wada hadlay waa sheegnay arrinkaas waxbana ku dari maha waxbana ka dhimaha sida Abdi Xaashi u sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyay waxaas aan sheegnay waa run been ma laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax qudhiisa oo fiisaha in laga caawiyo dowladda Ethiopia loo dhiibo oo raalli ka yahay si Ethiopia uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa ma aniga taas inuu qalbi dhagax dhiibay inuu dhiiban wax kale laakiin conversation ka aniga madaxweynaha iyo Abdi Xaashi xilligaas dhaxmaray sida Abdi Xaashi uu sheegay waa run yani conversation waa dhaxmaray laakiin habka loo stage gareynayo qaldan habka loo stage gareynayo ayaa qaldan muuga conversation kaas waa run
fadlan sharaxaad naga sii wada sheekaysigaas maadaama hadda ما مدحونا واب شيء يعني وحن أرنكاس وحنا كدرمها إن مدحونا ويري قلب دقح ما واسديبا يشيء محن كلها باسبور كان قد ما حسوس إثيوبيان كا أرنكاس وارن يعني إن أو conversation كاس أنا يا عبد حنشي مدحونا أيالني وارن أضجاس مكوبينا أرنكاس qorshuhu wuxuu ahaa in qalbi dhagax Itoobiya lagu wareejiyo laga saacido sida uu ku tagi lahaa I think it's a matter is not hadalka oo sida loo sheegay inuu run u yahay inuu been yahay horta waa wax kale يعني أنا مرة قصدي هذا إن الشيء مسومة لا conversation كاس وايا لاني لكن أنا هذا ورك كاسو يعني قلب دقح ما أساس بيباي قلب دقح أرتا قلب دقح بيباي متجرين قلب دقح أنا قاعد يبنورت مرك ركار كسر الله دقو قلب دقح بيباي متجرين قلب دقح أنا قاعد يبني سوما ما تلينا بتسوق ده سنبل وشيء ما تسبلش واو كوش يا جي ورد أنا وكوش foreign policy أنا دولة ما أنا حرير له سوما أنا قلت وحاربها سومالو إني ترى ما أنا قمت ديبن هبل ديبه ورني أرك كاس قلب دقح ديبه أنا قريبا كها لكن إجمعنا باللابن إجمعنا دمان أمرك هلا سوق بتقال كعيو يالها ستة وسبعة مرة بينا أركز وأبوريشن ديتيلز وأنا الشيء أنا كهلا مرة باني ما برا بينا كهلا تاس إجا ولا سوق تاس ما ورد قرصون والدي أنا قرصونته وحكى للتو لأن أبو أركز وعرقاكتن إيش يجا رفشوا haddii Soomaalidu wadaniyada aad sheegtay inaysan runka ahayn oo ooyintii xaaska ay tahay kiiskan mudane maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressureka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay ما أنا وحن ربا قلب دقح أدان ولا جل وروسما لكن وحنا ما إلهي كان حرر ما يكون قفها كل متى يا قف وين مارت ما يكون أبو سوماليا كل متى بده قف وين مارت نين كان وحواي سيدي سبب فرماجو سومالي ما لها مركي هريتو they thought in all the or might be small god إله ير ويها واحد كسر شر أو كحك سكر يا إنه سكحك سكر يتنورت على مضوته مر مدحوينه سيدي دولة كستم مدحوينه هيد وحور ريفلكشن وياهي أود أما الدقالة أما ملتري أما من أو دلكيس أو دلعنا التريتوريال مدرسني أو بوليتيكال مدرسني أو security unstable الحين أو عيدا شيء جوجو how do you expect إيش يجين مدحوينه إنه شرف يشو أو وحن دفاع maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressureka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay sideedaba aniga moogtahay marka aniga systemka aan ku jiro systemka hadda saddex sano laba sano ka badan ka maqana anigu ka hadlay waxaan ma aragtay maya horta hadda waxaan rabaa recordkan sidiisaba in la xiro madaxweynaha initiative-ka uu qaato ra'iisul wasaare uu qaato mashruucan lagu xiraayo anigana waxaan rabaa inaan bilaabo waxaan sheegaan waa recommendations iyo talo aan siinayo madaxweynaha iyo hadda anigu ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay eedda aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in laga cafiyaan rabaan ku yiri cudurdaarka aad sheegtay waraysigan qaybta horena ku jirtay ee qalbi dhagax iyo qoyskiisa ma si cad ayaad u leedahay kiiskii xarigii qalbi dhagax ee gaalkacyo dowladda ay ka soo qabtay qaybtii aan ku lahaa ayaan si toos ah idinkaga raali gelinayaa saas miyaad leedahay of course wax kasto processkaas oo ama xariga ama dhiibista ama dhibaato ka soo gaartaan ka raali gelin xukuumaddan oo uga baaqay in ka raali geliyaan mashruucan iska xiraan adiga kala maanta oo dhan waa lagu dhibaa ma ka shalaynaysaa xarigii qalbi dhagax sideedaba marka xafiiskaas aan joogo wax shaqada aanay qabanaa waxaan ka shalaynaa ma jirto ani shaqo oo aan danteyda aan ku qabsanay ma ahayn wixii markaas ila ahaday dadkaan xiray anigu furo janno ma ahayn waa kuu sheegay aniga sideedaba of course wixii ficilkaaga oo xumaanaho bini aadan ka soo gaaro dhibaato ka soo gaarto waxaa la yidhi walaalka candhuuftaadu gaarto gacantaada ha gaarto aad baan kaga mahadcelinayaa aniga waxaan aaminsanahay shaqadeyda si honesty ah oo niyad wanaag ah oo aanan ahayn khiyaano oo ku danaysa ahaynaan u fulna aniga horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiiyo farmaajo ama qof kastoo madax ay dooranayaan wuxuu yahay iyo siduu yahay kuma doortaan wuxuu ku dooranay siduu u muuqdo farmaajo horta sidii dadka Soomaaliyeed ninkay u maleeyaan horta ma ahan dadka Soomaaliyeed anoon hadal badan sameeynin ninkay u maleeyaan ma ahan nin caana madaadshaah u muuqdaa nin wuxuu u muuqdaa maskiin horta ninkaas waa nin canaan maqaata which means
إيشيك طبعا قف كستو نولنا نيجاتيف تريتس وله بوزيتيف تريتس وله قيب حن وكجرتا قيب سن وكجرتا لكن أنا وحان ربا أنا هذا فرماجي وحويه هي واسيان لهين نيكو أملايان معهن أنت أصلا ربا أنا كسو كوبا وتداوديل أنت ayaan kusoo gabagabeynaya warayskii gaarka ahaa oo aynu la yeelanay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe taliyii hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayay warbixinada la xiriira kiiskii qalbi dhagax ugu dambeyntii uu ku baaqay in sidiisaba la soo xiro sidaasina looga gudbo aad baan uga mahad celinaynaa in waraysigan uu naga aqbalo daawadayaal idin aad baad ugu mahadsantihiin inaad nala socoteen sidaa iyo nabadgelyo